Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Sokosid Academy. Fadlan haddaad ku cusubtahay subscribe saar, asxaabtaana gaarsiisa ay uga faa'iidaan cashirkani. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni labaad aan ku qaadanayno sida wordka aad wax ugu diyaarsan lahayd, aad ugu qori lahayd ama aad ku samaysan lahayd adigoo isticmaalaya wordka. Marka ugu hore waxaad soo kacsanaysaa horta wordka waxaa jirto siyaabo badan aad ku soo kacsan karto. taasina waxaan ugu soo hadalnaa cashirkeeni koowaad. linkiga hoos ayaan kuu soo dhigay, ku dhufo saad u soo daawato. Markaad soo kacsato wordka, marka ugu horeeya horta waxaan u baahanahay anigu inaan ciwaan aan qorto. ciwaanku wuxuu noqon karaa sheyga shirkadda magaceeda, ama title-ku wuxuu noqon karaa shirkadda magaceeda, ama ciwaan adigu aad diyaarsanayso. Tusaale, aniga waxaan rabaa hadda inaan ka hadlo ciwaan ah the government oo dowladda ah. Marka koowaad waxaan qoranayaa marka koowaad the government. Waxaan rabaa ciwaankeyga inuu noqdo ciwaan ka hadlaya dowladda. ciwaankaas marka aad qorato oo aad ka dhigto wada capital waad ka dhigi kartaa. haddaad rabtana waxaad isticmaali kartaa sentence oo sida grammatica u saxayo. haddii ay kaa noqoto qoraalkaada wada capital, hadda tirin oo dib ha usoo bilaabin, oo waxaad samaysaa inaad select garayso change case, halkaani ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa sentence case ka dooro. sidaas ayuu kugu saxmayaa adigoo aanan tirin oo dib usoo qorin. marka labaad haddana select garayso, waxaan rabaa ciwaankaasi inaan dhexda geeyo. markaan rabo inaan geeyo waxaan isticmaali karaa laba hab. midna waa shortcut, midna meel baa taabanaysa oo badhan ah. midda shortcut-ka waxaa isla qabanaysaa Ctrl+E oo wuxuu tagayaa dhexda. haddaadan marka shortcut aadan rabin, waxaad ku dhufanaysaa halkaani oo dhexda ah, geeska yar ayaad ku dhufanay paragraph groupka, kadibna dhexda ayuu tagaa. middan haddaad ku dhufato wuxuu tagayaa qoraalkaada dhanka bidix, tan haddaad ku dhufato dhanka midig, kana justify ayaa la yiraahdaa, oo qoraalkaada waxaad ku justify garaynaysaa meesha adigu aad u baahan tahay. aniga hadda marka waxaan u baahanahay qoraalkayga dhexda inuu ii aalo, kadibna farta aan waxaan ku darsado aan weyneeyo, haddana farta aan iska bedelo. oo waxaan doonanayaa far ku dhufo farahan oo dhan midi kaa anfacdo keliya ka doora adigu. kadibna hoos inaad ka xariiqdo ayaad u baahan tahay. haddaad u baahan tahay qoraalkaada, waxaad isticmaali kartaa Ctrl+U, ama waxaad isticmaali kartaa halkan U-da ay ku qoran tahay inaad ku dhufato xariiqinka hooska aad u baahan tahay aad ka doorato. qoraalkaada haddaad rabto inaad jiifiso, waxaad isticmaali kartaa Ctrl+I, ama waxaad isticmaali kartaa I-daani jiifto. ama sidoo kale haddana qoraalkaada haddaad u baahan tahay inaad weynayso, waxaad ka dooranaysaa B oo bold ah, ama Ctrl+B for book ayaad isla taabanaysaa, qoraalkaada ugu weynaanaya. ciwaanka ayaad diyaarsatay, inter ayaad hoos ku dhufatay. hoos markaad ku dhufato, qoraalkaada wuxuu ka bilaabayaa dhexda, sababtoo ciwaanka ayaa dhexda geysay. waxaad taabanaya Ctrl+L qoraalkaada si uu kuu geeyo geeska, ama halkaas ku dhufo si qoraalkaada qaybta bidix uu kugu geeyo. kadib waxaan ka hadlayaa aniga ciwaankii ka hadlayay government dowladda. waxaan qoranayaa meeshaasi sharaxaadii aan ugu hadlayay dowladda. marka aniga waxaan soo gashanayaa qoraal iska sambal ah. markaa soo gashanaya waxaan qoranayaa =90, kadib bracket ayaa furay, bracket ayaad xiraysaa. markaan sidaas oo kale aan u qoro, intan aan dhaho, qoraalkii dhan wuxuu iga yeeshay underline, hoos ayuu ka xariiqmay, bold ayuuna iga qaatay. sideen ku saxayaa marka? taasi markay saa kugu dhacday, horta qoraalka oo dhan select garee ciwaanka marka laga reebo, kadibna bold-ga U-da ku dhufo, bold-ga ka door haddana. sidaas marka waxaa meesha kaaga baxay qoraalkii bold-ga ahaa. haddana farta iska bedel oo far kale ka dhig. fartan waa weyn tahay, oo waxaa loogu talagalay marka qoraal wax la qoraayo 12 ilaa 14 ayaa loogu talagalay, ilaa 16 waa la gaarsiiyaa mararka qaarkood. sidaas hadda waxaad ku baratay text alignment wax la yiraahdo. farta meelaha aad geynaysid iyo geesaha ay aalayso. waxaa ka mid ah qaybta bidix inaad farta aad ka bilaabi karto, dhexda aad geyn karto, midig aad geyn karto. dhammaantood waxay leeyihiin shortcuts oo kala ah Ctrl+L oo left alignment loo isticmaalo, Ctrl+E oo loo isticmaalo center alignment dhexda in la geeyo,
Control R oo loo isticmaalo qoraalkaada midig inaad kasoo bilaawdo, iyo Control J oo ah justify qoraalka inay sinto. Hadda qaybtan yar ee calaamaysan ama ii select garaysan waxaad arkaysaa in qoraalku kala dheer yahay. Bal haddii Control J aan taabto, maxaad aragtaa? Qoraalkii oo dhan wuxuu noqday mid isla eg. Intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeeni labaad. Fadlan haddaad ku cusubtahay subscribe saar, asxaabtaadana gaarsii si ay ugu faa'iidaystaan.